السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حرجيني أين في عنتهين وحنالك كسي وضعنا حدو الله يدمو تحانيه أنو كغور بحنيني تاريخ ذا سومالي ذا وانا قيبتي صدحات سيان سلفحنو أما أين سلقبصنو وحينو كتشوابي دونا حدو الله يدمو saddex su'aalood waxaana faahfaahin doonaa inuu xoogaa ka taaban doonaa taariikhda Sayid Maxamed Cabdillah Xasan halgamaagii weynaa Allah u naxariistay. Su'aasha koowaad waxay leedahay goorma magaca Ogaadeniya la bixiyay? Talabaad waxay leedahay yaa bixiyay magaca Ogaadeniya? saddexaadna waxay leedahay maxaa loogu bixiyay magaca Ogaadeniya? Anta koowaad ka jawaabay magaca Ogaadeniya waxa la bixiyay sanadku markuu ahaa 1885 waana xilligii uu dhacay shirkii Berlin ee lagu qaybsaday Afrika khaasatan Soomaalida. Waxaa laga joogaa magac bixintaas 141 sano. Intii ka horeysay magaca Ogaadeniya la yiraahdo lama aqoonin. Xilliga la bixiyay magacana waa xilliga aan soo sheegay waa 1885. Magacan yaa bixiyay? Ma Soomaali baa bixisay? ma Ethiopia bixisay? ma dad kale bixiyay? maya, magacan waxa bixiyay nin Ingiriis ah oo la oran jiray Stephen Hare ayaa magac bixiyay. Stephen Hare magacan bixintiisa inuu Ogaadeniya dhulka u bixiyo xoogadan lahaa ma jacayl qabiil baa ma hawaye ummadda oo tirtiriyayba dantee kala lahaa. sababta uu kala waxa weeye kala qaybin iyo inay ummadda meesha degani kurka isla gasho. Stephen Hare iyo Ingiriiskiisuba hadday magacan u sameeyeen inay ummadda ku kala qaybiyaan ay ka raadinayeen isku dhac ummadeed magaci loo qaatay loo daayay oo wali loo Ogaadeniya loogu dhawaaqaya. waxaa loo qaatay raadkiisa taariikheed ee juquraafiyadeed ee ah kan uu khariirada caalamka ugu jiro. hadda diyaarad raacdo oo aado jigjiga inaad ka degtana aad damacdo kolkaad gasho xuduud beenaada waxay soo qoraysaa Ogaadeniya. haddaad damacdo inaad wax raadiso ama aad baadi doonto de wixii caalamku yaqaaneen ee lagu garan karo ee wax ku baadi dooni karto ayuun baad qaadan mooyeen shay aan la aqoon hadda rawaan dooni de waa jabi oo Soomaa waa ku awaankii dhaanteynayay lahaa qaalin may ahoo mindi iyo madane midna aan lahayn yaa mar noo sheego oo aan ku mahadinaa. qaalin may ah waa midab ahaanteeda u sheegaya mindi iyo madane yani mindi fur iyo waxa weeye faleer midna dhagteeda laguma goynin oo mindi lama taabsiinin madanana lama saarin oo sarabad shiid iyo far iyo wax noocaas laguma dhigin. marka waa qaalin Soomaali ah waa qaalin may ah oo mindi iyo madane midna aan lahayn amar noo sheego aan ku mahadinaa. saadarteed marka maadaama uu magacaasi khariiradana ku jiro gaalooyinkan waaweyn iyo caalamkuna ay sidaa ku og yihiin sidiisa aan ku dayno oo ku baadi doono oo ku soo ridano kolkaynu ka soo qaadano gumaysigana de magacan doona aynu bixino go'aanka la qaatay ka weey
ما هين reer gaar ah magacan loo daayay ama iyagaba lagu naas nuujinayo taa markaa haddaynu isla fahanay oo magacan meeshu ka yimaaday iyo asbaabta hadda loo qaatay aynu sheegnay aynu wax yar dib ugu noqono taariikhda sayidka insha Allahna darsiyadeena dambe ama soo gudbinteena dambe tan ku xigta waxaynu sheegi doonaa ama aynu mid u istaagi doonaa dhulka Soomaali galbeed la yiraahdo ee Abyssinia qabsatay xilligii Abyssinia lagu wareejiyay iyo gobolba waqtigay qaadatay iyo meeshii laga bilaabay inuu mid u sheegi doonaa daaladno laakiin aynu bal ka taabano sayidka taariikhdiisa oo kooban sayid maxamed cabdullaah xasan ilaahay ha u naxariistee wuxuu dhashay sanadkii 1864 wuxuu ku barbaaray ama uu ku dhashayba aan dhahe meesha la yiraahdo Sacmadeeqa waa dhulka la yiraahdo Nugaal halkaas uu ku dhashay oo maartay sayidku isla markii uu hana qaaday wuxuu bilaabay barashada culumta diinta quraanka xadiista maxawey ahkaamta ayuu si fiican u bartay kadibna uu xereeyay oo waxa weeye wuxuu aaday xaggaas iyo carabaha wuxuu safray oo xernimo maartay u kacay taariikhdu markay ahayd 1894 Madiina iyo meelahaas uu tagay soo xereeyay wuxuu soo noqday taariikhdu markay ahayd 1896 laba sano markaa iyo maqnaa waxa la yiri wuxuu ka soo degay xeebaha Somaliland khaasatan Berbera in aad baan jeclahay asagoo dhex socda magaalada ayuu ciyaal yar yar ah la hadlay oo wuxuu weydiiyay mid yar oo Korea oo Soomaali ah ayuu magac weydiiyay magacaabu ku yiri magac wuxuu sheegay aan magac Soomaaliyeed ba ahayn oo magacyadiisu Ingiriiski baayadu lahaayeen arinta aad buu dhibsaday kadibna waxa la yiri intuu dhagax qaat iyo toore oo ku yiri Ilaahay maanta intaasaan awoodaa kadibna miyigu u baxay wuxuu diyaarsaday oo maartay abaabulay dadkii halka joogay shacabkii iyo ummadii wacdiyay wax badan kadib wuxuu diyaariyay dagaal iyo inuu gaaladan wadanka qabsatay ee ku habsatay inuu ka sifeeyo sayidku wuxuu qaaday dagaal aad fara badan oo ku jabiyay cadawga waxa la sheegaa isagii cadawgu inay ku kulmeen 41 goobood oo dagaal weyn oo aad u adkaa waxaan maaynayaa dagaalkii u horeeyay wuxuu ka dhacay Jigjiga taariikhdu markay ahayd 1900 qoladii horeysay oo la dagaalamay Ethiopia bay ahaayeen kii labaadna wuxuu ka dhacay meel la yiraahdo Kumburo 1903 iyagana dagaalkan Ingiriis ayuu la galay dagaalka kii saddexaad wuxuu ahaa kii ka dhacay Daratoole 1903 asagana Ingiriis buu ahaa dagaalkaas kii afraad wuxuu ka dhacay meesha la yiraahdo Jidbaale 1904 Ingiriis marka dagaalo aad waaweyn hadda lama soo koobi kare ayaa maartay dhex maray isaga iyo Ingiriiskii markii uu dib kii diyaaradda lagu weeraray 1920 waxa lagu yiri Sayid Maxamed oo waday waa dagaal adkayde maxaa kugu dhacay waad carartay gartii bay ahayd oo diyaaradda lagu weeraray نقولها أنت لا يعلنك كينين إركي يدلك بايس قبصدي على رعد يدي أديك بعقل الله ده هاي عرم حدامة دقال هذا وين
qaaday ama uu ku jabinayay cadowga waxaa ka mid ah kii uu ku dilay koofil ee uu gabayga aakhara ugu diray sida lagu galay halaaga lagu maray markaad calaacalaysay iga daayay markaad lahayd gabay noocaas sayidka waa lagu kacay oo runtii markii dambe Soomaalidii uu ka dhashay iyo dadkii ayaa ku kacay waxa la yiraahdaa maamahaba waxay tahay gudinay hadaadan maxay ahayd geedo miyuu ahaa ama gudinay maadan i gooyseen haduusan gobolkii kugu jirin geed baa dhahay bal haduusan maartay dadka kula dhashay ka hor imaanin xumba tari laakiin haddii dadkii kula dhashay wadankaaga joogay ka hor yimaadaan waxba qaban kari maysid sidaa darteed halgankii iyo awoodii uu lahaa sayidku iyo ciidamadiisu way baabaaday sanadku markay ahayd 1921 ayay daraawiish burburtay sayidkuna waqtigaas uu geeriyooday wuxuuna ku dhintay degmada Imey Galbeed ilaahay ha u naxariisto